مسؤولين كترسن دولة goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay ugu horeeyaan wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdinaasir Cabdi Aruush iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa magaalada Baydhabo waxay kulan kula yeesheen madaxa ka socotay hay'adda UNSOM gaar ahaan dhinaca siyaasadda waxaana kulankooda ay uga hadleen xasilinta iyo xal u raadinta qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose oo dagaalo ku soo noqnoqday gaar ahaan degmada Marka oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku dagaalamayeen beelo walaalo ah oo wada degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose kulankooda oo ay ugu hadleen qaababka ugu muhiimsan oo xal loogu raadin karo nabadeynta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfadiyeenka la hadlay Cabdinaasir Cabdi Aruush wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed iyo Maxamed Xasan Fiqi wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed iyo ku-xigeenka hay'adda UNSOM ee dhinaca siyaasadda waxaana ay ka hadleen nabadeynta xasilinta iyo xal u raadinta deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose oo inta badan dagaalo ku soo noqnoqday inay nagala hadlaan arrimaha nabadeynta gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Marka wuxuu safarkooda uu daba socdaa safar isbuuci hore oo noogu imaaday ku-xigeenka wakiilka xogaha guud ee qaramada midowga Soomaaliya Reis Zanenga nawid magaalada Baydhabo oo aan ka codsanay in gacan laga siiyo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Marka wafdigan maanta waxaan warbixino ka siinay xaaladda gobolka iyo degmada waxaana ka codsanay inay arintaas dib u heshiisiinta dagaalkan muddada dheer taagnaay wax naga la qabtaan return to peace in Lower Shabelle. Lower Shabelle is a very important part not just of Southwest State but all of Somalia. We want to end all the humanitarian suffering that has resulted. We want to open access so there'll be peace will return to Lower Shabelle, and Lower Shabelle can once again become the breadbasket of Somalia that it used to be. guud ahaan macnaha gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan maanta waxaan si gaar ah diiradda loo saaray nabadeynta degmada Marka waxa loo yahay in uu naga ballan qaaday in wafdi degdeg ah uu soo diri doono nasiib wanaagna waxay noqotay wafdigii maanta inuu na soo gaaro masar taariikh ah waxaa shirka nagala qayb galay wasiirka magacaaban ee wasaaradda arrimaha gudaha oo ahaa wasiirkii hore xanaanada xoolaha Master Madoobe Nuunow waxaanan ballan qaadnay ka dawlad ahaan dhibaatadaasi Shabeellaha Hoose ka taagan iyo sidii dhibaatadaas socota looga bixi lahaa maadaama xoogayii guud hore aan isla soo qaadnay haddana si hoose ayaan maartay arrintaas isaga wareysanay xal sidii loogu heli karo waxayna ku soo gabagabowday in aan qorshe samayno wasaaradaha arrimaha gudaha planninga iyo wasaaradihii kale gacan ay ka heli karaan ma ahan markii ugu horeysay oo madaxa ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ka hadlaan xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan dhinaca dagaalada waxaana inta badan diiradda ay ku saaraan sidii lagu nabadeyn lahaa degmada Marka iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Hoose oo inta badan dagaalada ka dhaca Cabdinaasir Musharraf telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo.